السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا كسر وابرتن يوتيوب سهن channel. هدي تمر أوري أنا سو بوقتد فلان سن حارس سبسكرايب صار شرقري ولو ده أصحابته. موضوع ما تحكوا اسمه دلك ماليزيا وضل على جغرافيا كفر برآسيا. عاصمة كلجما مروان ميلاد كوالالمبور ومجال الدلحيس كان عاصمة كوبدنيا. أنا كل داري أقول دارا أدون كهر داريه نيويورك حل جاس لو يكون يكودي مركز ولا قاعد ببريس. لكن ما أنت دارهن ولا قدير يهي. دلك واحد دل اللي يهي تايلاند سنغافورة إندونيسيا iyo فيتنام ماليزيا gumeysay Ingiriiska laga soo bilaabo 1986 ilaa 1963 markaas oo ay la midoobeen Singapore laba sano kadib Malaysia ayaa tiri marna Singapore markaas oo ay Singapore noqotay dawlad madax banaan la ku darsan xisaabto Malaysia dad ay tiri marrabno maanta ka dhaqaaq badan tahay Malaysia waa dal maanta dhaqaalihiisu kordhay waxbarashada korortay dhanka jaamacadaha iskuulada taas oo maanta dad badan oo Soomaali waxbarasho aadaan luqadda rasmiga ah kan laga hadlo waa Malay language diinta rasmiga ah waa Islaam lacagta kan laga isticmaalo waa Malaysian ringgit population-ka ama tirada dadka dalka Malaysia waxa loo qiyaasay qiimeyn la sameeyay 2018 32,456,000 qowmiyadaha degan dalkan wax u kala baxaan Malay oo ah dadka ugu badan dalkan oo ah dad Muslim ah Hindu iyo Shiineys nidaamka dalkan waa federalism waana dalka ra'iisul wasaarayaasha awood leeyihiin ra'iisul ugu horeeyay dalkan wuxuu ahaa Tankul Abdurrahman kaas oo qabtay markii ay qaatay xorriyadda 1963 laakiin ninka gaarsiiyay maanta horumarka ay gaareen dhaqaalaha iyo heerka ay maanta ka gaareen dhanka teknolojiyadda iyo dhan walba oo ku saabsan xagga horumarka wuxuu ahaa Mahathir Mohamad markii uu qabtay xilka waxa uu ahaa dal inta badan dadkiisa fuqaray yihiin oo horey wuxuu ka bilaabay inuu ka dhiso dhanka waxbarashada taas oo ku cadeynaysa in bulsho wax baratay dalkeeda ay bedeli karto Malaysia waxay leedahay buuro aad u qurux badan wabiyaal indhaha soo jiidanaya saddex qiimeyn la sameeyay marka saddex jaamacad ugu horeeyay dalkan waxay kala yihiin jaamacadda saddexaad waa University Technology of Malaysia waa jaamacad ku saabsan dhanka teknolojiyadda taas oo la soo helay ama la aasaasay 1904 jaamacadda labaad waa University Science of Malaysia taas oo ku saabsan dhanka sayniska waxaan la soo helay ama la aasaasay 1969 jaamacadda koowaad waa University of Malaysia waa jaamacadda qaranka waa taas oo la aasaasay ama la soo helay 1905 meelaha loo dalxiiska dalkan waxaa ka mid ah magaalada Penang Island waa magaalo xeebeed aad u qurux badan waxayna leedahay buundad ugu dheer dalka Malaysia taas oo gaaraysa 8 kilomitir Skull Beach waa jasiirad loo dalxiis tago aad u shidan taas oo kamid ah meelaha dhaqaalaha dalkan ka soo galo Tarim Waterfall waa biidcaan ku yaala dalka Malaysia kaas oo indhaha soo jiidanaya Kabas waa jasiiradda la yaabka oo ka fiicinaysa dadka booqanaya quruxda iyo dhadhalka ka muuqda jasiiradaas halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa mowduucina maanta aad iyo aad ma santihiin daawashadiina